السلام عليكم. رالي هذا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوماليا ميل الله يمشى الدنيا دعالذي ذا كتشوب تامبا وإنكو سلامي إلهينا هينكو حافظو ساسا ربي راحينك هاك الرجين هيا إلهينا سومالي ذا ميل الله يمشى الدنيا ذا كتشوغان إلهيكو حافظو يدك مسلمين تابا سودو هذا ولا المعان إن ما شاء الله صدق ممكن دور الرماد هذا كله ربعنا مثلها بلو لكن هسه الحين جدا كفرايا والدنيا أنا ما بدلوها يسرع نبو كفو الدنيا هاي يا والله هذا ما نسوي هذا waxyaalaha bulshada baraha bulshada isla maraya rabaa inaan xoogaan ka hadlo ujeedo kalena aan ka hadlo hees kama ayna dhibay ma waxaa rabtaan ma hore ka bilaabo Abdullahi Farmaajo isla weynidii isla qaadqaadkii maxaa ka dambeeyey yaa maxaa ka dambeeyey isla weynidii isla qaadqaadkii Maxamed Abdullahi Farmaajo nin dhan oo waddan dhan madaxweyne u ah oo siyaasiya anigu ma leeyahay welcome walaalay macaan waan salaamay kal yalaab ayaan idinka salaamay welcome soo dhawaada yaa dhowr arrimoodan ka wada hadlaynaa iyo xoogaa xagga siyaasadda aan ku falaqayn doono waxa ka socda isla weynidii Maxamed Abdullahi Farmaajo taas welcome ku ahaada walaalayaal horta salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel allaaliya meeshaad adduunyada dacaladeeda ka joogtaan ilaahayna hayn ku xaafido waa kaasaa kelmad yar keliyaan rabaa inaan arrimahayga ka hormariyo kelmadaas oo ah dhibaatooyinka ka taagan waddanka hindiya waad ogtihiin dadka islaamka oo degan hindiya waa dadka ugu yar oo minorityda la yiraaho waxaa jira cido kale oo la yiraaho christian waxaa jira cido kale oo la yiraaho light meesha in lagu baabi'inayo lagu xasuuqayo marka waxaan ka rabaa dadkiina Soomaaliyeed inaad walaalihiin dadka muslimiinta oo hindiya ku dhibtoon oo lagu baabi'inayo horta dadka islaamka inay u duceeyaan u wada kacaan ilaahay inuu xaafido si xun baa loo jirdilahayaay taasaan in leeyahay taasna taasaan uga baxayaa arintayda koowaad xalay waan bilaabay maantana waan ku wada hayaa intii muddo waqtiya waxaan rabaa dadka reer galmudug oo galmudug degan oo special cidda habar gidira la leeyahay ama cidda hiraab la leeyahay waxaan rabaa inaan u sheego in magaalada Hobyo la yiraaho
waqti dhow waxaa ka bilaabanahaya dhismo iyo isbeddel adduunka marka waxaan rabaa inaan inii sheego ciddiina maaragtay hiraaba isbishal habargidirta in aad ka gaartaan inaad dhulal ka gadataan magaalada hobyo oo dhulalkii dad badan baa gatay laakiin inaad gadataan meel allaaliya meeshaad adduunyada dacaladeeda ka joogtaan habargidir hiraab waa inay gataan dhulal ka gataan magaalada hobyo dhismaa ka bilaaban doona marka waxaa la rabaa lacagahaas aad boosaska ku xirataan maantay in investment dib loogu geliyo dekeda hobyo kabacdina wixii naga maqan aan anaku iska aruurino ama adduun weynaha qofkii raba inuu noo babac dhigo oo nagu caawini doono waxyaalaha naga dhiman inaan ku dhammaystirno marka anigu waxaan leeyahay habargidirtu ha dadaasho dhulalku intayna dhammaanin dhulalka waa inaad xirataan magaalada hobyo dhismo weyn baa ka bilaaban doona marka waa inaad dhulka gadataan lacagahaas aad dhulka ku gadanaysaan dekeda hobyo ayay gelaysaa taasaan idin leeyahay waana kusoo celcelinayaa markasta oo hadalkayga aan bilaabo barkee waa loo baahan yahay inay hobyo dhisanto marka adinkaa inilika rabaa in maaragtay waddankiina aad dhismaha ku bilowdaan walaalayaal taasaan idinka leeyahay waxaan inii sheegahayaa in ciddan oo baarlamaanka soomaaliya oo magaalada muqdisho ka dhisan oo shacabka waxaan rabaa sida xaqa iyo xaquuqda aadamaha ay tahay inay ku kacaan ay ku sameeyaan ay wax ku abaabulaan oo maaragtay aanan musuq maasuq baarlamaanka dhexdiisa aanan la gelinin barkee dhibaatooyinka ka socda iyo afgarasho la-aanta ka socota corruptionka ka socda baarlamaanka dhexdiisa waxyaalo la qaadan kara maaha annaku dad soomaaliyeed baan nahay waxaan rajaynaynaa qurba joogtadeenna in waddankeenna wax la yidhaaho cadaalad ay ka dhacdo marka cadaaladdaas xaggay ka imaan kartaa waxay ka imaan kartaa dadka ku jira golaha shacabka soomaaliyeed oo gobolada ama federaalka geedka loo yaqaano ama federaal qarisku waa qabiilooyin isku yimid oo common ah marka waxaan rabnaa inay daacad noqdaan oo aana la gelinin baarlamaanka dhexdiisa musuq maasuq wax la yidhaaho iyo kala gadasho lacag wax ma tarto lacagtu way dhammaanaysaa laakiin waxaa haraya magac xumo iyo dhibaato haraysa soomaaliya waa waddan aad u dhiban oo dhibaato haysato oo ilaa 3 sano hadda lagu jiro maxamed cabdullaahi farmaajo iyo khayro waxay u geysteenba aad la wada socotaan ay ku tunteen shicibka soomaaliyeed 4 koono meel allaale iyo meeshay ka degan yihiin soomaali oo 5 soomaaliya meelay dhaafeen male jabuuti oo darisa ankay waa loo gafay marka waxaan leeyahay xildhibaanada iyo wasiirada waxaan ka codsanaynaa haddaan annaku shicibka soomaaliyeed aan nahay xaquuqda aadamaha inay iska ilaaliyaan oon dhibaato aan laga abuurin baarlamaanka dhexdiisa taasaan ka codsanahayaa baarlamaanku waa gadan yahaa la yiri mursalna waa gadan yahaa la yiri laakiin insha allah biidnillaahi alkariim mursal ha ku tashado wax dhaaxaa mooshin laga keenay farmaajo asaar riixay oo lacag ku qaatay inuu mursal iska ilaaliyo xaqa aadamaha soomaaliyeed oo meesha uu u fadhiyo inuu ka noqdo qaadin ma aragtay caadaqaato aanan ahayn oo ma aragtay xaquuqda aadamaha iyo soomaalida xaquuqdooda dhowro inuu noqdo marka waxaan ku leeyahay mursalow dhibaatooyin badan baad noo geysatay haddaan nahay shicibka soomaaliyeed xaquuqdii soomaaliyaad ku tumatay gobollada xaquuqdoodii baad ku tumatay lacag baad dhaafsatay marka mursalow waxaan ku leeyahay cuqubada iyo waxaad iska ilaalisaa dhibaatooyinka ka dhalan kara baarlamaanka dhexdiisa ninka la leeyahay xasan cali khayre oo ku iibsadoon ognahay dhibaatooyin ayuu waddankan soomaaliya 3 sano oo ra-iisul wasaare aha ayuu ku sameeyey beelaha uu kuraasta ku matalo ninka la leeyahay xasan cali khayre waad ogtahay dhibaatada uu u geystay magaca hawiye iyo sida uu ugu tuntay magaca hawiye iyo dhibaatooyinkii uu ku sameeyey galmudug wax kaa qarsan ma ahan inuu lacag investment intuu gobollada gelin lahaa ee hawiyuhu degaan ilaa nin kastoo soo baxa waxaa laga rabaa gobolka uu kasoo jeeda inuu dhiso weeyaan waa sida adduun weynuhu ay sameeyaan moogtahay imbeshi waxaa naga soo baxay rag madaxa oo nagu tuntay mar kasta oo xaquuqdeennana na dhaafiyey waxa weeyaan haddii sharciyada adduunka aad la socotaan ninku hadduu maaragtay waddanka madaxweyne ka noqdo waa inay gobollada originalka ay ka soo jeedaan ama magaalo madaxda markaas ay fadhiyaan oo dowladdu fadhido waa in la dhisaa annaka lama dhisina waa nala ku tuntay gobolladii ay ragga hawiye ka soo jeedaan oo dhan way ku tunteen marka waxaan ku leeyahay mursalow waa inaad iska ilaalisaa iibsashada xasan cali khayre faa'iido uu leeyahay male annaku haddaan cidda hawiye nahay waan aragnay already asagoo kursi hawiye ku fadhiya oo hawiye uuna soo dooranin ayuu nagu tuntay marka waxaan ku leeyahay walaal adduunyadan lacag waa la helaa laakiin aakhire waxaa kuu taalla dhibaatada aad shicibka soomaaliyeed u geysanaysid mursalow marka baarlamaanka dhexdiisa waa inay is ilaaliyaan dadka caada qaadatada ah oo ka buuxa oo aan naqaano oo badan oon hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel aan dhihi karno aan tilmaami karno
marka waa inaad xaqa soomaaliyeed aad ku shaqaysaan waa inaad ku shaqaysaan xaqa ma aragtay oo laga rabo waddanka soomaaliyeed adduun weynihii baa nala yaaban internationalkii baa indhaha nagu haya waddan intaas oo sano 30 sano maquuq oo ka jiro dadkii la qarxinayo dadkii la dilahayo al-shabaab wax micno la kuma fadhido al-shabaab haddaad rabtaan inaad iska qabataan waa qaban kartaan abaabulayaasha al-shabaabna waxay fadhiyaan magaalada nairobi xaafadda islii waa la qaban karaa adduun weynahana waa loo sheegi karaa wadaado badan oo culumaa oo waxaan soo aas-aasay ayaa fadhiya ninka la leeyahay xasan xuseen ayaa ka mid ah oo xaaskiisu xiran tahay 7 sano hadda ay xiran tahay oo bambooyin iyo adduun lagu qabtay marka soomaalida waxaan u sheegahayaa dadka baarlamaanka ku jira oo shicibka soomaaliyeed matalahaya inay ilaahay intay ka cabsadaan waddanka iyo shicibka iyo calankaba ay u naxaan waddanku waa waddan dhacan waddankaanu tuugaa soo baxday qarindumis ah waddanka dhaqaalihiisi saartay tii aadamaha loogu gargaarahayo xaquuqu bilaadanku ay soo dhiibeenna jeebabka ku shubatay oo rag ku masruufta hoteelada magaalada muqdisho dhibaatooyinka waad aragteen dhulalka dad baa lagu qortay hodheelada dad baa lagu qortay lacagihii waddanka waa laga saaray maanta maalin ay ka xun tahay ayaa lala xisaabtamahaya adduunkana way arki doonaan aakhirana tii rabbi baa ka horreysa taasaan leeyahay laakiin waxaan ini leeyahay ninka u doodahaya xasan cali khayre oo maanta kursi hawiye ku fadhiya oo nagu socday oo na baabi'iyey oo galmudug oo dhibkaan ogaa xasan ninka la leeyahay xasan shiikh uu ka soo maray dhibaatadii galmudug dhismaheeda laga soo maray waa tuu ku dudumiyey wax aanan sikin ku qaadanaynin oo culummadii reer galmudugna meel uga dhacay oo dhibaato culummadeenna sunna wal jamaaca oo galmudug deganeedna dhibaato u keenay oo been turuufo aqli xuma inuu culummada ka aqli badan yahay isku maleeyey marka waxaan leeyahay dhibaatada khayre oo galmudug gaarsiiyey waa dhibaato u baahan muddooyin dheer inay kasoo kaabsato laakiin insha allah biidnillaahi alkariim reer galmudug way ogaadeen dadka isku dirahaya qabiilooyinka wada dhashay oo wada dega magaalada galmudug dadka isla dhashay dadka isqaba dadka wiil iyo waarid isku ah dowlad waxaa soo baxday inay afka isku geliso laakiin aanu asxaanfalaynin marka waxaan in leeyahay walaalayaal dadkiina ku jira baarlamaanka shicibka soomaaliyeed waxaad meesha u joogtaan shicib soomaaliyeed aad baad u joogtaan haddaad rabtaan inaad shicibka dhibaatadiisa aad ka shaqaysaan iyo dhibkii maxamed cabdullaahi farmaajo ee xasan cali khayre ay u geysteen waxaa la rabaa daacad inaad noqotaan khayre inima gadan karo waan la soconnaa hususka way noo tilmaaman yihiin dadka gadan wasiirada gadan waan la soconnaa xildhibaanada gadan waan la soconnaa markii waqtigeeda la gaarana waan soo dhigaynaa laakiin waxaad ogaataan biri inaad kuraastaas baarlamaanka aad ka wada deganaysaan oo inila hoobinayo marka waxaa inii roon inaad u arxantaan oo u eexataan shacabka soomaaliyeed anigu taasaan inin leeyahay lacagu micno ma leh biri waad ka madax bannaan tahay biri lacag la-aan baa kugu dhici karta marka waxaan ku leeyahay shicibka iyo waddanka ha loo eexdo cadow badan ayuu leeyahay soomaaliya cadow badan ayuu leeyahay ninkii noogu xumaa oo na baabi'iyey oo dagaal nagu soo qaaday wuxuu ahaa etoobiya 1977kii dadkii naga dhintay oo dagaalka etoobiya ku dhintay lama xisaabi karo weligiin ma aragteen nin madaxweynaha u tacsiyeynahaya waa maya weligiin ma aragteen raggii kusoo dhaawacmay oo ciidamada militariga oo la dhihi jiray libaaxa africa oo maantay dhooban martini dhibaatada ay ku qabaan iyagoo wada disabala lacagihii ummaduhu usoo dhiibahayeen oo gaaladii aan kugu diinta ahayn oo kugu afka ahayn ay ku soo caawinahayeen waxay ku sameeyeen khayre iyo farmaajo waad la socotaan iyo inta ka hooseysa oo ku jiraan bangiyada hadday noqoyiin hadday noqoto meelaha maaragtay lacagaha dhaqaalaha loogu talagalay in la dhigo waad la socotaan walaalayaal marka walaalayaal waxaan leeyahay ha la iska ilaaliyo biri waad ka deganaysaan magaxumo dadkiina iyo gobolkiina iyo magaca soomaaliyeed ha u soo sheeginina maanta adduun weynuhu muxuu naga aaminsan yahay wuxuu naga aaminsan yahay soomaaliya meesha ugu corruption badan inay tahay meel allaale iyo meeshay tagaan inay corruption geedda la yidhaaho ay ku samaynayaan walaal waxaan anigu ku waayay afkayga iyo soomaalinimo kuma helahayo lacag ka bixin mahayo corruption waa inaan afkayga wax ku raadsadaa aqoontayda wax ku raadsadaa anoonan isgadin anoonan qof u eexanin waa inaad aqoontaada aad ku meel martaa qofka bilaadanka oo soomaaliyeed waxaa laga rabaa wuxuu yaqaano in wax loogu qabto cilmiga uu leeyahay in wax loogu qabto corruptionka hanala ka ilaaliyo adduunyadii waxaan ka noqonnay rah tilmaaman ayaan ka noqonnay waxaa la ogaaday in ra-iisul wasaarihii soomaaliyeed oo magaca hawiye ku fadhiyey oo magaca soomaaliyeedna matalahayay oo ra-iisul wasaare ka ah maalintii oo baariis yimid oo france yimid waa la ogaa ceebta adduunyada ugu weyn markii uu ra-iisul wasaareyaashii qurbaha ahaa oo reera yurub oo soo dhex fadhiistay oo yidhi investment ha la gashado diyaaradda ninka soo ijaartay asoo soo raaci kara diyaarad shacab waa lala yaabay adduunyada ilaa hadda
ولا ليا بنيهاي مركا هدين نينكو وحونا هين اسكدغو اما ميل اونا غاري كرين او اسغارسيو مالين بو dhulka imaanahaya waxa la yiri shimbirta haada irsaaqadeedu dhulkay taala marka xoolaha iyo shacabka Soomaaliyeed ya kelmadii oo ku soo baxay maxamed cabdullaahi farmaajo ma xasuusataan xasan sheekh ayuu dhabiilayay muxuu ku dhabiilayay diyaaradaha xasan sheekh ma raacin inta uu diyaaradood raacay maxamed cabdullaahi farmaajo ninkii yiri diyaaradaha shacabka raacaya waligiin ma aragteen hal maalin oo ugu masawira oo la wada ogaayo oo la wada qosol adduunweynaha oo dhan ayaa ka jirta oo istus iyo simbatiye ka tiyaarsan haday Soomaali saaran yihiin marka waad aragteen xasan cali khayre diyaarad dhanba wuxuu ku qaatay ingeer adduunyada kama dhicin wala madaxweyne adduunka aan sameeynin wala ra'iisul wasaare adduunka aan sameeynin wadamada hormaray shicibkay ku dhex jiraan bidishkileetilaali wataan magaalada dhexdeeda ayakoo golihii baarlamaanka ku jira war Soomaaliyay liban aadan lahayn iyo meel aadan lahayn hamadu yeeyno ku dilaacinayna ku gaarsiin mazuulin qaada la yiri eed qaada la yiri marka inaad ku tamashleydaan oo ma aragtay abaabi isaan dhaqaalaha arxamka lagu siiyay inta dadka wax ugu fal lahayd waa inaad iska ilaalisaan dadka aan la hadlayo waa dadka golaha shacabka ku jira biri waad dhacaysaa محمد عوض كلامه ما لقى يا بابري كمان قبيل كانوا إنه دبكوا صدرته ما ملاينا هيو فدرال كلجو شيء هيو وقبيل ددن يا لجو قرن فدرال هذا ما قشي فدراليسمو ضدكوا وحي قال هذا يدوينه ونقمان إن أي تهاي قبل أنا قلت ما أنت UK بندقنا هاي قبل UK كم إذا هندقنا هاي وكتيرة وقبل إسكيس رح بنام بانا نفهم إيسا دور الشدة يدو مركي أي نعضة أيالا قاضا أيالا جايا برلمان تدبا لوحل سارة ما هني برلمان وحكى لحظة هي برلمان وحكى لتروفين هي برلمان كيل الربيع إنه بدباديو وتروف هذا كإلاليو برلمان كصوماليا صدّن سنة ودجالهم كتيرنا إلا حتى دجال كيم كده حجرنا مركب وحنا نلاقي هاي ما برلمان كيل الربيع إنه حل قاضه أو waxa umada Soomaaliyeed ay u dhiibteen ay u matalahayaan inay xaquuqda ku soo saaraan ma aynu ku soo saarin waxyaalaha ka dhacaya magaalada Muqdisho kama hadlaan baarlamaanku reality-ga dadka ma tusaan dhibaatada shacabka haysata ayagoo ka hadlaya ma aragteen hal maalin intay xireen baarlamaanka ma yiraahin dhagaxda Muqdisho taala oo shacabkii iyo tagaasidii ay ka socon waayeen iyo baabuurtii iyo dadkii shaqada aadi lahaa waxaana laga aruuriyo wadanka ma la yiri maya meel aan ka tirsannahay iyo meel ay Afrika ka dhacday iyo adduunyooyinka hormaray ma ay jirto meel security waa loo xiraa biraa la dhigaa laakiin wadan dhan oo dhagaxdii dekadaha lagu dhisayay la dhax dhigay waa dhibaato annaka noo soo hoyatay waxayna dhibaatadaas ka socotaa xagga baarlamaankan ka dhisnayna marka maxaan rabnaa waxa la yiri kanu ambay ku kala mooyaane maxaa la rabaa marka umada Soomaaliyeed maxaa laga rabaa inay baarlamaankooda ay dhistaan oo dad xaquuq bil aadanka ku dhisan la keeno baarlamaanka dhexdiisa on loo baahnayn nin baarlamaanka ku jira inuu lacag qaato barkay maantay haddaad lacag qaadato dhibaatada maanta aan ka cabaadayno ayaa birina ka soo baxaysa baarlamaanka Soomaaliyeed ma fahmaysaa marka baarlamaanka waxaan leeyahay waa inay badbaadiyaan shicibka ciidda iyo calanka waa waxa badeeni Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo asoonan dhaxkeenin baarlamaanka oo u saxeexay waa waxa asoonan shicibka Soomaaliyeed bal yow yasi kara ana soo doortay yow yasi kara lacagta uu dhacayo ana canshuur ku bixiya qof Soomaaliyeed oo ano kala hulmantalahayo ayaa canshuur ku bixiya marka waxaan idin leeyahay in xoolahaadana waa rabaa adigana waa ka cararahaya debriyan ku tusahaya inaad waxba ahayn oo shalay anigu kursiga aan ku keenay oo wax aad tihiin adiga qayre ayna jirin yaa lagu musawirin disaabilka ee ganjeelka gadaalaha laga furo villa Soomaaliya xasan cali khayra laga hayaa marka waxaan leeyahay walaalyaal u arxama Soomaalidiina waxa la rabaa dad arxanka yaqaan ama dad xuquuq bil aadanka yaqaan in la keeno baarlamaanka Soomaaliya nin corruption lacag qaadanaya adduunyani waa nala yaaban yihiin adduunka ilaahay idmay gaal iyo muslim waa nala yaaban yahay dad dawladda oo baarlamaankiisi ay lacag qaadanayaan ay corruption sameynayaan oo hilla micna darra ay sameynayaan wariyada xuquuqda koowaad waxay iskale shicibka Soomaaliyeed nin allaale iyo ninkay rabaan ay soo dooran karaan ay soo saaran karaan lama gaarin Soomaaliya adinka noo jooga adinka waxaan in ka rabnaa corruptionka inaadan fiirin oo xuquuqda aad fiirisa aadamuhu leeyahay iyo ninka sababta bixin kara Soomaaliya maanta dhibaatada ay ku jirto ma fahmaysaan marka shicib baad matashaan dad qof iyo cod ayna noqon karin maantay oo aan jeclaan lahayn laakiin ma noqon karto 10 sano hadda ka bacdi aan qof iyo cod Soomaaliya ma noqon karto waa in gobolada la dejiyaa waa in gobolada xaq
lagu dhisaa waa in gobolada tirakoob lagu soo sameeyaa waa in qurbaha dadka jooga ay noqdaan oo soomaalida tirakoob war nin jecel male inuu qurbo jooga nin kasta waddankiisa uu jecel yahay dhibaatada maanta qurbaha lagu qabo haddaan soomaaliya joogi lahayn ma aanan qabi lahayn hooyo badan baa ooyeysa oo ilmaheedii waxay iska noqdeen bartilmaameed xabsi buu ka soo baxayaa dad buu la socdaa dadkaasaa xun shalow xabsi soo galay waa lagu dhagahayaa waa lagu tuurahayaa asoon waxba geysanin markee jaa askarta waddanka waa u tilmaaman yahay waa nin xabsi ka soo baxo xabsi hore u soo maray marka walaalayaal waxaan leeyahay dadkiinan xildhibaanada iyo dadkiinan wasiirada waxaan inka codsanayaa dadka shacabka soomaaliyeed meel kastay adduunyada joogaan ayaad matashaan xaqdarrada waa inaad iska ilaalisaan waxyaalaha xaqdarrada keenaya waa inaad iska ilaalisaan codkii shacabka ayaad ku fadhidaan meesha wixii qayrkoodu ku jira shacabka soomaaliyeed waa in la sameeyaa oo nin asaguba haddaad aragtid corruption samaynahaya waa nin aanan tala haynin nin corruption samaynahaya waa nin aanan tala haynin oon soomaaliyana mateli karin waxna tari karin weyaan marka yaa la ii qaataa ninka daacadda igu maamulahaya oon corruption ka dhiibaynin aniga kaasaa nin u aqaana may fahanta marka waxaan leeyahay baarlamaanka soomaaliyeed waxaan inka codsanahayaa inaad is ilaalisaan taasaan inka codsanahayaa shicib baad u fadhidaan shicibka soomaaliyeed baad matashaan codka shicibkaa tihiin marka walaalayaal waa inaad is ilaalisaan corruptionka aad dhaaftaan annaku waa naqaanaa xasan cali khayre dadka uu gatay oo baarlamaanka muqdisho dhex fadhiya kulli waa la soconnaa amiirka madaxa ugu weyn oo baarlamaanka oo la yidhaha waa madaxweyne ku-xigeenkii soomaaliyeed maanta haddii madaxweynuhu ama uu dhinto ama uu meel aado ninka mateli kara waa ninka baarlamaanka fadhiyo amiirka asagiina jaa corruption waa corruption caadiya weeyaan waa nin labada daam wax ku cuna waayo marka walaalayaal waxaan leeyahay hal is ilaaliyo ninkaasu qayro u gadan yahay loo joogaaba hadduu qayro u gadan yahay laakiin ilaahay waxaan ka baryahayaa wasiirada iyo xildhibaanada ilaahay inuu xaqa kusoo toosiyo magac shicib bay ku hadlahayaan magac shicib bay doorashada ku dhiibahayaan magac shicib bay wax ku bixinahayaan waa in adeerkay waa qabiilkay adduunya kuma socoto war ninka wax maamuli kara maamulka soomaaliya ha loo dhiibo oo markaas xaqa iyo xaquuqda u leh oo cilmi u leh oo diiniyan ka dhisan oo tacliin ka dhisan ninkaas ayaan ogolahay anugu akhlaaqduna waa muhiim nin sida farmaajoa oo kaloo caytamahaya aniga ima soo galo nin intuu ilbaabada xirto ilmaha taleefanada ka aruuriya caayahaya madaxdii asaga ka horreysay naba eva soomaaliya kama ayna dhicin waa ninkii koowaad oo saas ka dhiga dadka markee waxba iskuma hayo ninkaas oo kale tale ma leh maxamed cabdullaahi farmaajo tale ma leh soomaaliya wuu rogay waxaana rabaa shicibka soomaaliyeed in waxyaalaha uu saxeexay maxamed cabdullaahi farmaajo vistiga adduunweynihii hadda ay kaceen oo la ogolaaday in doorashadu ay ka dhici doonto sida caadiga ahayd ay u dhacdo oo asaguba uu kusoo baxay waxaan rabnaa dekedaha etoobiya waxa uu iimaanka u geliyey in la ogaado waxa uu kenya kula dhirtamay in la ogaado baddii sida ugu dhaqsiyaha badan oo emergencida in loo celiyo oo maxkamadda internationalka biyaha soomaaliya lagu celiyo holland waxyaalo badan ayaan rabnaa marka ma ka hadleen ma ka dhidhiyeen ninkaanu intoona dhicin ma la soo fadhiisin doonaa golaha shacabka ma sheegaya maxamed cabdullaahi farmaajo tuuganimada uu wado iyo boolka uu soomaaliya ku riday markee saxiixyadaas oonan soo marin golaha shacabkana waa la kansali karaa meel allaale iyo meeshuu saxiix kasoo dhiibay ya waa la kansali karaa allahuma najaynaahan maqli jiray waxa weeyaan yuuna halaagin dadka ma aragtay aadamaha oo laakiin diinta islaamku waxay qoraysa aanan haysanin oo soomaalida oo la yiraaho waxyaalaha la yiraaho gayga iyo lesbianka oo maxamed cabdullaahi farmaajo oo soomaalida yiri soomaaliya waxaad ka tihiin free waxaad ka tihiin xor waa inaad iska ilaalisaan dadkaas biri haddii la dilo oy soomaali disho diiniyan islaam lagu dilo nin qaniisa yaa ka dambeeya waay maxamed cabdullaahi farmaajo ka dambeeya barkee hawe aanan ka soconin soomaaliya weli oona dimuqraasiya publica aanan gaarin oo dadku free yihiin oo qof kasta garabsaartiisa uu garabka saaran karo oo ilaahay baa toobadkeenka nugule aadama nuguma lahane aan ku socon karno xurriyad iyo calanka soomaaliyeed inaan shicib soomaaliyeed nahay nin allaale ninka wax xumaana sameeyana ilaahaa ku leh يوم القيامة ربي بالا حساب تمايا الدنيا أقرأ ولا حساب تمايا وننكي وجهري ومدحوينها أفريقيا وجهري مركي لجهد لي وحن ده كان مساكين تا ولا يري وجاي يلسبيان وننكي مدحوينية أفريقيا وجهري وأفريقيا لجو قبتي ننكي وجهري وصحيح وهاكينيا مركا هدي من سوماليا وحسو جاران وجاية أما قبر لسبيان وسوماليات
اللهم نجينا وحن كبر يا وحي كدعو إن محمد عبد الله فرماجه هو يا أب كركيس سوليين وحيالا إن صومالي قادم باكرة بقولك وبقول ضد مسلمين عن هاي ضد وحنا هاي السنة صوماليا ولا يقارنا سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كنت أجلنا هاي وحيالا إيو إن وحيالها ماركتي فتالونيكا ونوع عاصو كلا إيو أنكم ما قادرنا أي كان إلهي وحنا قبر يا إن الرب جاي ضد كان نوع عاصا إلهي نسوه نونيو وحقه إلهي تصو taas leeyahay baarlamaankuna inuu is ilaaliyo maalin kasta waan ka hadlahayaa waxaan rabaa oo kale inaan ku xujiyo galmudug waxaan codsanahayaa waa codsi oon ku hadlahayo afka dadka reer galmudug qof kastana uu ku hadli karo oo magaca galmudug wata oo reer galmuduga uu galmudug ka soo jeeda galmudug musuqmaasuqa ka socda waa in la iska ilaaliyaa سيبا وحن أسيدك هيا مركان هبر قدر حق جيو قبيلوين ككل أبقالنا كسارو بركي وحبا موسيقى كراسو حقا نسنا إسكدك هيا إن قبيلوين ككل أول عليه يويل وارد عن سكون هاي وصوماليات وحن قعد سنة هيا وبقول كي وبقول قعد سنة هيا قلمودك وحي سوا مرتي نباتوين مدام رك أنا علمي لهنا وكسو تنتين وهوري وكسو تنتين بركي وحكوعت نباتوين سنة والجماعة علماء الرجال المذوق وسنة ذا لو جيستي هدو معلم محمود يهاي ما أنت أسو سجاشنديرة هدي أو يهاي إن شيقة إن شيق شاكر أنا جو حن لا يهاي علماء ذو بقول كيو بقول أيكو رالة أو قاعدي عقلي السياسة ده أي دولة الصومالية سيستم كده أي أركتي سيدا أي قصة عدان أما سيدا أي يهين وحن كرر بعدك الرجال المذوق إني إسكا إلاليان بركي مسق بaa soo baxaya dadka walaalaheeyo reer galmudug ila daga hadaan magaca habar gidir ku hadlahayo ama magaca hiraab ku hadlahayo waxaan leeyahay walaalayaal meesha dawladu ma jirto nin kaliya taliya oo fikrad kaligiisa wata oo fikrad oo kala yimid Ethiopia raba inuu ku dhaqo Soomaaliya oo dhibaatooyin badan iyo husus noo bilaabay oo damcay Soomaaliya oo aragteen oo nation oo dad islaam ah oo Soomaali uu yahay oo wiil iyo waarid la isku yahay oo iswada dhaleen qabiil kastay ka dhasheen shanta Soomaaliya nin aana nin farac kale u galin dir iyo daarood yahawiye ma jiro marka waxaan leeyahay annako saas isku ah haddana islaan ah maxamed cabdullaahi farmaajo waa ninkii ku dadaalay inuu Ethiopia iyo Soomaaliya xuduudka u kala qaado oo isku dhex daro waa ninkii yiri ninka Ethiopia ka imaanayo Soomaaliya uu ka shaqaysanayaa shaqooyinka priority-gaana waxa la siinayaa Ethiopia aawi Soomaaliya wadanka iska lahaa oo xuquuqda lahaa oo Soomaaliyeed oo Soomaaliya u dhashay according ku ahaayeen asaga iyo qayri bifad marka waxaan leeyahay in galmudug marka waxaan kala hadlayaa inay musuqyada iyo maasuqyada ay iska ilaaliyaan meeshan qabiil waxa ku ah walaal waxa ku ah ninka gobolka kula daga ninka gobolka ila daga marka maxaa la rabaa inuu danta galmudug oo wax kasta ka hormariyo danta galmudug maxay tahay maanta midda aan ku taaganahay ma kuwa awlaadeyda maanta nool oo soddon jiradaana ma waa the future ka dambe kuwan ayayda u nahay iyo kuwa ay sii dhali doonaan aayahoodii oo dhan ayaa wuxuu ku jiraa galmudug marka maxaa la rabaa dadka galmudug adinkaa iskale waa in musuqmaasuqa soo socda la iska ilaaliyaa dawladdu musuqmaasuqay wadaa waxaana inii sheegahayaa marwada madaxweynaha haddaad xasuusataan kelmadihii ay ka dhiidhisay ayadoo qof marwe ah oo matalaysa hooyooyinka iyo naagaha Soomaaliyeed oo Muqdisho jooga oon u maleynayna xaaska madaxweynaha wayba tahay waan ognahay laakiin aan u maleynaynay inay hooyooyinka iyo naagaha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo yaryar oo soo kacaya ay matali karta marwada Soomaaliyeed oo madaxa ugu sareeya madaxweynaha xaaskiisa ay tahay kelmadihii ay xamar dhexdeeda ka tiri raadiyo Shabeelle waad la socotaan waanad baari kartaan waxay tiri 4 kursi hawiye shaqaday ma ahan bay tiri hawiye ciidu ka badan yahay ha u maleynina hawiye inuu yahay hawiyaha aan naqaano kaliya oo hiraabkan isla dhashay iyo xawaadlaha iyo mursadaha iyo saasa u maleynin war hawiye ciidu ka badan yahay hawiye meel kasto daga Ethiopia u dhex daga Kenya u dhex daga xuduudiyo badan buu dhex daga wuxuu ku nool yahay ilaa Uganda Hindiya qaara jooga oo ku farxmay abku ab oo la yaqaano caan oo hawiye ah marka waxaan idin leeyahay walaalayaal ayadoo naagaha Soomaaliyeed matalaysa ayay waxay ku dhawaaqday hawiye xagga hala dhigo aniga 4 kursi hala iga siiyo bal ayadu waa jilib mursada hal kursi bay xaq u leedahay day ka helayso maqaamka xamar one single kursi ay ku leedahay kursi labaad ankay ku malahan haddii la isqancinayo waay habar gidir daaqaday ka bixisay abgaal daaqaday ka bixisay xawaadlo daaqaday ka bixisay
qabiilooyinka oo dhan daaqaday ka bixisay marka walaalayaal waxaan leeyahay waxyaalaha qaarkood waa laga fiican yahay hal kursi xaqay u leeyihiin maqaamka murursada inay ka helaan kursi waanu nu ogolaa mana u diidani waxaa hadalkaas maalintii aan kululaadoon karkaro hadaladii aan control leen afkayga kasoo baxeenna waa maalintay tiri galmudugna ha samayso waxa ay dowladdu rabto oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay rabaan iyo ninka ay wataan waa inuu kasoo baxaa magaalada galmudugna aad baan uga xumaaday marka ima matasha noocaas oo kale aniga ma dhihi karto waanad aragteen raggii 2017 wax ka saxeexay galmudug inay 4 nin ka bedeleen oo 4 nin oo musuqmaasuqa ay keeneen inii sheegi mahayaano qurba joogtaa adinkoo jooga dhuusamareeb ayaad la socotaan isbeddelka ka dhacay marka waxaan ku leeyahay nimanka cusub oo 4 taaw la keenay waa all corruption waxayna ka socdaan xagga xaaska madaxweynaha marka waxaan leeyahay galmudugay aayaha future-ka dambe ayay labaad meeshaad ka noqon lahayd awlaadaada iyo kuwaad maanta ayayda u tahay waa inaad u fikirtaan galmudug hadday dhisanto 10 sano dambe soo socda awlaadiina iyo waxay dhaleen ayaa ku raaxaysanaya marka qof musuq maasuq wada iyo dawlad ayada dhanba musuqa waa inaan iska ilaalinaa dawlad annagu aan u kacno shacabka Soomaaliyeed oo u kacayo ahaa sababtaan ugu kacna maxay tahay oo uga cararnay rag dad noo xigo hawiyaha ahaa waxaan ka ilaalinaynay wadanka dagaaladii dhibaatadii kasaaritaankii maxamed siyaad barre in la kala dego oo musuqmaasuqa la joojiyo oo dawladdu ay noqoto dawlad rasmi ah taas ayaan ugu hiilinay horta hore waa mideeda kale waxay ahayd dhaawacyadii Soomaaliya soo kala gaaray oo qabiilooyinka soo kala gaaray in aan la tusin daaroodu inuu la mid yahay qabiilooyinka daga Soomaaliya ama mareexaan inaan la tusin inuuna ka mid ahayn qabiilooyinka daga Soomaaliya se waa ila dagaa galmudug oo dagaaya marka taas daraadeed ayaan ugu hiilinay maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan u maleynahay nin reer magaala nin mutacallina waa ku sirmay qof kasto aniga ila midana wuu ku sirmay maxamed cabdullaahi farmaajo niman baa jira hawiyaa garab waa siin kari Soomaaliya ma aanan siinin barkay waxaan diidayay musaqa iyo qabyaaladda maantay qabiilka yaa i baray maxamed cabdullaahi farmaajo ay baray maantay qabiilka yaa i baray xasan cali khayr ay baray meel kasta murursada haysta مريحان iyo murursada dawladii Soomaaliya oo ogtiin Soomaaliya waa shanta Soomaaliya oo nation dhan ayaa waxay noqotay qabiil marreexaana iyo qabiil murursada qor iyo xiraan in ku dhaarshay waxaas ma ka socon karaan wadanka Soomaaliya waa maya marka aan ka digno ta kala soo socota dawladda cusub oo soo socota waa inay isku kaayashaan dhaysaa waa inay iskaaye gelisaa waa inayna u nixin tolkeed kaliya in kasto qabiilna la baray oo aan sameyn karno inaan eheladeena soo dhaweysano annagu taasaan ka digayaa baarlamaankuna ilgooniyan ku haynaa reer galmudugna waxaan leeyahay galmudugay aayahaada fiiri xasan cali khayrana ha fiirinin farmaajana ha fiirin ninaana biri bakeeri biyaa ku siinaynin yo maanta ku raranin rarka waa inaad iska ilaalisaa odayaasha sunna wal jamaacana waxaan leeyahay adeerayaal wixii dhacay waa dhaceen culimmadii reer galmudug baa tihiin waaridkeen ayaa tihiin dad waxaa tihiin qiimo weyn agteena ka mudan haddaan reer galmudug nahay waxaan rabaa galmudug in musuqmaasuqa laga ilaaliyo oo sida ilaahay iyo rasuulkiisa in ku ogyahay oo culimo ah ku tihiin inaad ku taageertaan oo galmudug xaq aad ka dilaacisaan oo odawaa ka soo baxo meeshaas waa haddii aan rabo future-ka galmudug haddaan future-ka galmudug aan rabo oo inaan galmudug ku dalxiiso hobyo aan rabo xiibteeda waa inuu odawaa soo baxaa hadduuna odawaa ka soo bixin anigu uma soo socdo galmudug taasaa inii sheegahayaa anigu reer galmudug aan ahay weliba dad la yaqaana ay dhalay marka taasaan inii sheegahayaa waxa kaloon inii sheegahayaa musuqmaasuqiina waa inii sheegay baarlamaanka dhibaataa ka socota waa inii sheegay Soomaaliya waxaan rabaa meel kasta ay joogtaan indhaha inaa furtaan laakiin baarlamaanka maanta jooga hadday arkeen musuqmaasuqii dawladdan gabagabada oo sii socota ay matali doonaan shacabka Soomaaliyeed ay ku matali doonaan wax fiican barkee baarlamaanka dadka ku jira waa qabiilooyinka Soomaaliya la isku keenay taasaan uga baxay gabar waxaa jirta aan jeclahay inay tahay xildhibaanad saan u fahmay gabar yar oo raxan weyn oo caytantay oo la yiri waa xildhibaan jawaab inaan ku siiyo miistaayishid xildhibaano xaal qaado waa kuu soo hoyday xildhibaano xaal qaado naag xildhibaana in ay caaydo yaa mahad salaad ama ay u garta habar gidir horta waa midaan ka xumahay dadka libaladoodu waa kala socdaan marka waxaan leeyahay way istaqaanaa naagta xildhibaanada anuuna magaceedana tilmaamaynin waana gabar yar oo dhalinyaro ah aqligeedaba intaasuu gaarsiisan yahayba waa qof iska dhalinyara qofka hadday maskax leedahay oo maanta nin xildhibaan aniga uu wixii yidhaaho inaan u aamuso
أنا أجاوب أيال إيقاطه بركي وحو يهي شعب كصوماليات باشيجا هي gabadhaas raxaween halkaasaan uga harayaa ma rabo inaan ayada levelkeeda aan la gaaro taas laakiin xildhibaanadan waxaan u soo celinayaa mahad celis waxaan leeyahay walaalayaal xaal qaata dadka qaarkood oo matala oo baarlamaanka Soomaaliya ku jira dad noocaas oo ku jira waa waxyaalaha aan ka dagaalamayno waa waxyaalaha aan ka hadlayno ma fahanteen marka waxaan leeyahay walaalayaal raal waxa la yiri ninna si u qaaday af Soomaaliga habba dhinaci loo jiida ayuu u jiidmaa haddii mahad salaad hadalkiisii waxuuna ka wadin laga matalay dee qofkii ka xumaadayoo raalli ahow laakiin ulajeedada iyo meesha nuxurka ku jira qofka waxaa fiican inuu ogaado ma fahanteen nuxurka meesha ku jira ayaa fiican in la ogaado sideedaba in la ogaado taasaa fiican marka waxaan leeyahay haddii dadkii af Soomaaligii aan la wada aqoonin anigu reer Baydhabo waxaan leeyahay walaalayaal raalli ahaada لكن ولجدة أدنكوا أدو قادتين يو ولجدة أسوأ أو كوضا نكو مركو نين سياسية ياي الصومالي هذا اللي سفهمين دبعتي إلا هذا لكن أنا عيد الرحمن وحن لا يعني أنا قلت حقيقة شرف باتك المدينتين مقالة ذا عندنا هو كوبدينين علومات شوف ترحمونا شقي شريف اللي رحموين ناقب بدنو قاليها نقالنا قبل بدنو ما إن شاء الله تبارك الله نقالنا ورحموين وقبل إسكاب بيزاني قبل وحبرتي قبل المقالة قبل وحن كلها ياي مقالة ذا إنجليز كإلى دقن وأنا قبل كي أنا تلمامين لكن waxaan leeyahay aniga halkaas iga saarin sharaf baan u hayaa laakiin dadka kale oo raba inay iska dhigaan sidii dad u danaananaya in Baydhabo gobolkeeda iyo raxaweynta waa adinka waxa bahosha ku riday dadkiina ka hadlay Facebook-yada anigu levelkiina ma ihi mana ka hadlayo laakiin waxaan leeyahay in hadalkaan nin baa dhameeyay nin aan u malaynayo nin waaye aragay inuu yahay ninku waa nin raxaweyna waa nin aad in loo qadariyo mudan waxaan jeclaan lahaa hadaladiisu waxay ku jiraan Facebook-ga haddaa rabtaan waa raadin kartaan midda uu ku hadlay bahalkii waa laga fiican yahay ninka dhan oo matalo oo dhahaya waxaan ka ahay maamulihii ugu sarreeyay madaxii ugu sarreeyay Baydhabo marka anigu kuma dayanayo waxa fiican laakiin muraayada intuu hor istaago inuu isfiiriyo wajigiisa si fiican u fiiriyo asagu qaabkiisa isfiiriyo markaas oo dadka ula shaacimaado wuxuu yahay taasaan asaga ku leeyahay horta wajigiisa fiiriyo muraayid weyn intuu si soo hordhigo ninka madaxa ugu sarreeya Baydhabo oo dhahayo madaxweynaha Baydhabo u ahay bal ha isfiiriyo waxaan ku leeyahay lugta Greno Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar dhow warqadii dalaaqada uu kugu furayay waa ku keenayaa adiga iyo dad badan oo adiga kula mid ah waa la furayaa mar dhow dalaaqadooda la siinaya ilaa saani wada qaba kulligiin ya afka aku hadashayna adoo sanad guuradaadi tahayna hadal aad iska soo hindistay oo habargidir ma ku dhaawacmayso war habargidir intaas waa ka sarreysaa habargidir intaas waa ka reer magaalsantaa habargidir waxaas wax ka daran ayay u soo adkaysteen ayna nin iyo naag ayna ka hadlin iyo ilmo marka waxaan leeyahay adigu waxa weeyaan mar dhow waa lagu furahayaa farmaajona waa dhacahayaa xisaab xilmalana waa soo noqonaysaa Baydhabo ama qari ama ha qarin meel kastay ku jirtaayo shicibka reer Baydhabo waa ogyihiino farmaajo baasaboorkiisi ayuu ku seegay oo maxkamad ku tagahayaa taangiyada Itoobiya laga keenay oo lagu xasuuqay Baydhabo saa waxa ka hadashay gaalkacay waa inii soo istaagtay waxay tiri ninka waa kana dilay ninka waxa dilay marka waxyaalo aan socon ha isi soo barbar dhiginina may fahanteen laakiin mar dhow adiga dalaaqadaadu waa soo socdaan nin allaale iyo ninkii farmaajo nikaax uu ku haystay laba maxaa la dhahaa wuxuu waa saddex laba dalaaqadood waa uu furahayaa nin allaale iyo ninkoo laba dalaaq ku haystay uu furahayaa farmaajo mar dhow marka waxaan ku leeyahay wariyow kaa tagin waxaa la yiri hadalku intuu uurkaada ku jira ayuu amaano galaya laakiin hadduu afkaada ka soo baxo amaano male kalgacaylka aad u qabtid habargidir waadna tustay ciilka aad noo qabtid waadna tustay dadka bi attention aan ka ahaan doona ayaad ka mid tahay adigu marka waxaa la yiri ninaan biri wax ku taraynin iyo shicibka Soomaaliyeed kugu dirin taasaan ka leeyahay anigu waxaan leeyahay ilmaha dhalinyarada Soomaaliyeedna oo magaca habargidir sheegatana war waxaana lala murmin oo aan akhlaaq lahayn hal la murminine hadaladiina xirta war dadka waa la qiimeeyaa naagtii shalay ay tamaysay anigu kelmad ma aanan dhihin laakiin waxay i tustay waxay tahay marka waxaan ku leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo magaca habargidir ah oo qurbaha iyo Soomaaliya joogaan dadka noocaasa oo Facebook-yada ka caytama walaalayaal waxa loo baahan yahay hiiladu dagaalka runta markuu joogo laakiin naag magac
rabto raxan weyn inay ku qaraabato ama nin raba magac raxan weyn inuu ku qaraabto ha u jawaabinina aniga waxaan ahay maamo waxaan in ka codsanayaa cidiina habargidir hadalladiinu qiimay ku fadhiyaan iskama hadashaan dadka noocaas yaan loo jawaabin balkay haddaad u jawaabtaan qiimo ayaad u yeesheen marka noocaas oo kale qiimo looma yeelo waxaan inii sheegahayaa maxaa la yidhaahaa sheekh mukhtaar roobow waa xiran yahay xabsi buu ku jiraa farmaajo iyo ciidamadiisa ilaalada waa la garaacay sheekh mukhtaar roobow si xun baa loo dilay xabsi buu ku jiraa waa tii la dhahayay dabad baa loo qaadahaya diyaalis u baahan yahay fiican maxaa dhacay maalinta uu arkay sheekada inay baydhabo ka xumaatay wuxuu rabay inuu soo saaro haddana wuu baqay oo wuxuu yidhi dadkiisaa idilahayuu yidhi farmaajo marka farmaajo wuxuu yidhi ilaa intaan ka dhacahayo mukhtaar roobow waa inuu xabsiga ku jiraa ninka matala oo madaxweyne ku-xigeenka oo matala maxaa la yidhaahaa baydhabo iyo maaragtay raxaweenka matala maalin ma ka hadlay wixii ku dhacay mukhtaar roobow maya yow u gadan yahay xasan cali khayr shalay yow u gadnaa markii la dilaayay mukhtaar roobow oo la xiraayay oo la shirqoolahayay yow u gadnaa wuxuu u gadnaa maxamed cabdullaahi farmaajo marka waxaan leeyahay walaalayaal dad badan baa jira oo ka dhiidhin doona dad sharaf laana ka buuxa oday aan xalay dhegaysan hadalladiisa aad iyo aad ayay ii cajabiyeen maasha allah caawana waa inii soo saari doonaa ninkaasu waa nin waxgarad leh waa nin meel dheer ka hadlay waa nin meel fog ka hadlay waa nin raxan weyna dadka noocaasa ha ku jira marka waxaan leeyahay habargidirey afka ha iska xumayninina barkay qofka asxaab baad usii samaynaysaa markaa lasii qaadqaado lasii jaha qaado yaa loo jawaabin maca ciyaalada yaa loo jawaabin idhagaysta yaa loo jawaabin facebooka waa u baahannahay mar dhow waxa soo galahaya doorasho weerar baa ka dhex dilaaci doona facebooka oo doorasho ah marka waxaan leeyahay taas noo haya dadkaan aan micnaha lahayn sida lafta gareen iyo sida asaga dadka lamidaha oo jilib hoosey ahaan u waxaynahaya iyo yaan lala qaadin facebook oo u baahannahay mar dhow doorashada xisbiyada bilaabanahaya olaan wadnaa marka noo kaadiya meeshaasaan hilla uga baahanay waxaanan jawaab u baahnayn habargidirey jawaab ha iskaga daadin iyo ciddiinaan hiraabba jawaabtiinu waa inay qiimo leedahay in ka dhicin jawaabtiina insha allah mukhtaar roobowna waa soo bixi doonaa taasaan ka leeyahay waxaan ka hadlayaa ninka la leeyahay bayle waxaan leeyahay soomaali in dhaqaalihii soomaaliya soo galay inkastoo nin kale oo bangiga dhexa fadhiya oo ina adeerkiisa laxmi ah maxamed cabdullaahi farmaajo oo lacagaha asaguna transfer uga dhigo dhaqaalaha soomaaliya wixii soo gala dhaqaalahanu xaggay kasoo ay ka imaanayaan miya raqdoo iisoo qor maxaa ka wadaa mursal muxuu yahay عري والله ورنتا والله بالله والله بالله ماما ورنتا والله ماما ورنتا ماما waxaan leeyahay dhaqaalaha waxa jira wiil asaga ilmaadeer yihiin meelo badanna jooga laakiin waxaan rabaa inaadan xisaabta Soomaaliya oo loogu talagalay magaalada Muqdisho quruxdeeda in lagu sameeyo gobolada la siiyo lagu kala habeeyo dhaqaalihii goboladu ay lahaayeen majibaarti lacagta xaggay aaday badana xaggay aaday ila gobolada wadogtiin galmudug maxamed cabdullaahi farmaajo maalinta uu yimid cunaqabateen oo dhunta u saaray hiiraan waad aragteen cunaqabateen uu galiyay waxyaalo badan baad ogtiin baydhabo waad aragteen lafta gareen inuu 2 shilin siiyo maahan abtinimo uu ku siiyo maahan cunaqabateen buu galiyay marka waxaan leeyahay lacagihii waxa iska lahaa oo adduunyadu ay noogu waxaynahayeen in Soomaaliya magaalo mudug fiiri dadkan ajnabiga waxay rabaan wadan kasta inay hagaajiyaan wadamada dagaalka soo maro dhan in loo gurmado Mareykanka xaquuq badan ayaa nooga maqan wadankeena asaar rusheeyay guryaheena asaar dumiyay dad badan oo dhaawac oo nagu dilay maxuu u yimid markuu imaanayay maxaa keenay dagaalka inuu Soomaaliya gargaaro oo garab qabto oo cunto iyo wax keenay ma uu imaan laakiin adduunyadu markii hore ka dhaadhiciyay laakiin adduunyadu waa la fahmeen markii dambe Mareykanku inuu xasuuqay Soomaalida ma fahanteen marka waxyaalo badan iyo xaquuq badan ayaa ku maqan Mareykan oo Soomaalidu leedahay xisaab xilma lama imaanaysa Mareykan waa la xisaabtamayna dhibaatooyinka uu Soomaaliya u geystay taasu waa mid aad meel kasta ku qoran kartaan kiina yar oo maanta soo goraya waana laga qaadayaa
sheekooyin oo hadda kahor ka sameeyey wadamo ka mida wadamada maaragtay south america ayaa jira waa lala xisaabtamaya soomaaliya dad badan uu ka dilay shicib aan soo noqonayn uu ka dilay maanta inta joogta labadeed uu ka dilay marka waa kula xisaabtamaynaa meel allaale iyo meesha dhisneedna wuu naga dumiyey wuu naga baabi'iyey xaquuq waxay ku tahayna xaqna waxay ku tahay inuu asagu dib habees ku sameeyo uu soomaaliya dhiso laakiin maxaa laga rabaa raggii madaxda ahaa oo la xisaabtami lahaa ayaa la rabaa haddii wixii la keeno la yidhaha waddankaa lagu dhiso jeebka lagu rito oo lala soo istaago deen baa nalaku leeyahay war deenka lagugu leeyahay muxuu yahay caawa anaa kaa dhaadhicin kara waxaan madaxa kuu gelin karaa in deen lagugu leeyahay lagugumana laha anaa xoola kugulan ku dhihi karaa marka soomaalidu madaxooda ha ka bixiyaan deen baa soomaaliya lagu leeyahay waa nala soo ogolaanaya wax kale ay dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo ay taqaano ma jiro soomaaliya deen laguma lahan qof ay deen ka qaadata male waxaa yaalla deenkii maxamed siyaad barre waana lacag xiran oo go-an oo qof kastoo soomaaliya oo maanta cimriga anigu aan jira iyo cimri ka weyn jira yaqaano lacagtu intay tahay marka yaa lagaa dhaadhicin deen baa nalaku leeyahay deenkii baa nala ka cafinaya waxaa la rabaa tii maxamed siyaad barre in la cafiyo adiga deen lagugu soo qaata deefij lagu geliyo بريكا مال نكست أكو قبسان كره ودن دين لقوليه أو حول ضدك عنو كدعي حقو هذا هي وشيكذا يتروفذا أي وضان بيلي محمد عبد الله فرماجي حس على الغير دين سوماليا لقوليه مال سومالي دو وين هرتذا كعذا حداد إسكت عند إسين دين لقوليه ودن كذا ويودا ما نساء آخرك إن كستينو سوماليا وحبك كيني كريم أيوة إحنا كسمين كريم عنا قبتين كستا أي سمايان محمد سياد بربا والله ساري وانو لنا وانو كسوكرنا مركو حان ليه soomaaliya deen lagu leeyahay ma jirto deenka ilooba wax deyna oo soomaaliya lagu leeyahay male kulli nimanka wax garadka oo dhan oo aqliga lana waa og yihiin tiin maxamed siyaad barrana de hadday naga cafiyaan that's fine laakiin deyn dambe kama qaadanayno deeqda lagu siiyo ma deeqdiya deen la iiga dhigaani deeqda adduunka oo dhanaa bixiseen waagii soomaali ay u hiilinaysay sacuudi araabiya waagii qadar ay diif ka cunaayeen oo dirxiga ilmaha korkooda ku socday wadamada carbeed يا أنا أفريقيا جوجو ولي بالصوماليا أيا العقد ودري جري ما أنت قدر محي يجوا أبال بدي إلى الشباب العكس يسا علماء انجرنا العكس يسا أي ترى هلا بابي صوماليا وسنة هلا بابي هلا قاليو ما يقبتها أنا مركا قدر ميلان وصهرين هذا صومالي هاي إن الشباب كانوا شيء جايو وحس على القير إفادة ياسين ينيك الجولة فرماج العقد قدر إصابة حسو oo laga soo qaado la yiri Soomaaliya hal ugu xeeyo dadka hal ugu taakuleeyo wax loogu dhiso ma aragtana iyaga wax ku qabanaya waa maya marka Soomaaliya walaalayaal waxaan ka codsanayaa shanta Soomaaliya deenka la sheegayo ma jiro maalintan maqlaan in ku bilaabay mudooyin bilaahan soo wada waan wadi doonaa Soomaaliya deen lagu ma lahan deen iska dhaadhicinina qof deen lagu leh oo alla leeyahay ma jirto waan qana dadkii deenka ma tababarkii ruushka ma tababarkii talyaaniga waan qana lacagtii maxamed siyaad barre lagu lahaa waa lacag go'an oo aan wada naqaano annaka dhan inteena waaweyn marka yaana in ka dhaadhicinin lacagaan jirin in Soomaaliya lagu leeyahay taasaan uga baxay hobyana maalin kasta way nii sheegayaan dhulka hobyaha la gato hala gato bakay lacagta aan dhulalka ku gadano investment ayaa waxa lagu gelinayaa dekadeena hobyo taas ogaada marna waxa bilaabanaya geed la yiraaho olo jaa adduunweynaha dhan waa noo yeelay qadar iyo Itoobiya waa sax hooyo waa saxda meel baan ku soo xiraynaa Itoobiya asagu ha u tago asoo walaal leeyahay annaka Soomaaliya nala dhaha Soomaali haddaan nahayna Soomaali waa Soomaali baa iskale magaci iyo dhulkii way isleeyihiin marka waxaan ku leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo asagu Itoobiya ha aado dhaqaalihii Soomaaliya ka xada Itoobiya shirkada guryaha ka gashado asagay abeeyna insha Allah maanta maalinaaneen Itoobiyaanku waa kacayaan dhaqaalihii oo ka haday magaalada Itoobiya oo farmaajo sheeriga uu kula noqdana Itoobiya ka dhex dilaacaysa xuquuqda ay Soomaaliya u geysteen galmudug ay waxa leeyahay Itoobiyaanka la iska saaro هلا إسكا سارة إذا مواد قبطان هلا إسكا سارة مسوق الرفر ما جانا هلا إسكا إلالية يحس على غيره أفر تنين ولا كاني وأفر توجو أو مدو قربها كتجي أنا قانو كوا كلام ما قانو لكن أو لانجرام كوا قانا هلا إسكا إلالية تاسان إن الله إن مرة واحد بلابنا هيا أولا بلابنا هيا ما مقليسان أولا بلابنا هيا تلفن كي جواني ساقري ماركتين إن farxiya isoo qor hada telefonka uu korku saaran yahay aragtay isoo qor telefonkayga soo inima saarnaa idgala soo hadli kartaan soo qorad xaan ku dhacay ragel mudugo arcidaana wargidir la yiri yaabay leeyihiin inkastoo Soomaali badan oo lovely leeyahay jeclahay ay ka buuxaan halla isoo qor telefonkayga haduu saaran yahay waa inii soo qoray saaka waa inii soo saaray baajinka koowaad
waxaan rabaa mar dhow ololaa bilaabanahaya ololaha in cabdishakuur bilaabanahaya meel allaale iyo meeshaad adduunyada dacalladeeda ka joogtaan hadday waddan carbeed tahay hadday maraykan tahay maanta waa la isxininya taabanahayaa waxaan idin leeyahay ina cabdishakuur waa nin nadiifa waa inuu bannaanka u soo baxaa madaxweynaha future-ka soo socda soomaaliya ya 2021 waa inuu ina cabdishakuur noqdaa qofkii taleefankayga arkay ha ii soo qoro inuu taleefanku meesha saaran yahay taasaa idin leeyahay sucaad qaranna ma saarna meesha yaa waayo qofka wata odawaa masawirkiisa anyway yes mama yes khayr allah ku siiyo marka mar dhow waxaa noo bilaabanahaya ololihii ina cabdishakuur xisbiga wadajir ayaa bilaabanahaya waxaan idin leeyahay special dad badan oo aan jeclahoo laafli ah oo qabiil kasta leh oo maraykanka jooga waxaan rabaa maxaa ma saarno taleefanka waa qoray waa saaran yahay haddaad rabtaan afkaan inii ka sheegahayaa waa qoran kartaan eber 4 7 eber 2 eber 1 9 7 9 3 waa kaasaa waa saaran yahay yes waa saaran yahay waa kaasaa taleefanku marka horena waa soo saaray marka waxaan leeyahay mar dhow waxa bilaabanahaya america dadka jooga dir iyo daarood yahawiye I love you saaxiibaan la ahay waa isnaqaanaa waa dad masha Allah waa dad sharaf leh waxaan idin leeyahay waxa bilaabanaya ololihii madaxweynaha future-ka oo soo socda waxaan rabaa in loo kaco ina cabdishakuur Minneapolis dadka jooga dad badan baan ka aqaanaa masha Allah oo faamilada ah marka waxaan leeyahay qof kasto ya waa inuu u kacaa waa in loo kacaa xisbiga wadajir waa inaad calaamaduhu lacag ma joogaan waad ka helaysaan dadkiina reer maraykanka $1 baad ku gadan kartaan $2 waa la samayn karaa ha la sameeyo waa taqaanaan kalarka wadajir ha la soo samaysto ha loo kaco maqaayadaha soomaaliyeed dukaamada soomaaliyeed oo maraykan ku yaal 52 state waa inaad surataan soomaalida ku nool waa in loo kacaa xisbiga wadajir muqdishona waxaan ka rabaa asxaabtayda halkaan aan ka salaamaya waxaan waarid u ahay waxaan walaal la ahay waxaan ehel nahay iyo wax kastaba oo Soomaaliya dir iyo daarood yahawiye waxaan leeyahay reer Banaadir waxaan leeyahay loo kaco wadajir loo kaco xisbiga wadajir loo kaco siyaasiyiin badan baa imaanaysa dad badan baa imaanaya wasiirra imaanaya xildhibaano imaanaya dad dhaaxana waan daba dhigan doonaa oo ah xildhibaano ah waxaan daba dhigan doonaa dad badan oo ah maxaa la yiraahaa wasiirra kore ilaahayna qarfaan uguma soo aadiyo qarfaan asagoo tolkeeya asoo inaadeerkeeya asoo reegal muduga ayuu wuxuu noqday lagu shubte dawladdu waxay tiri madaxweynuhu wuxuu jecel yahay ra'iisul wasaaruhu wuxuu jecel yahay wadankiisa iyo dadkiisa iyo shacabkiisa iyo eheladii iyo dadku ka dhashay ayuu ku tumanayaa qarfaano wasiirnimadu macna male magaca ka har sabriye magaca ka har walaalkay macaan magac ayaa adduunyada lagu meel maraa war wajigan ilaahay wuxuu uga qaaday timaha waa baasaboor aad adduunka ku maraysid oo dadka lagaaga dhex yaqaano may fahantay sabriyo waa nagu tumatay haddaan reegal mudugnahay aad baa noogu tumatay haddaan hawiye nahayna magaca hawiye haddaan sheegana iyo hiraabba goonina waad nagu tumato si xunaa noogu tumatay marka waxaan ku leeyahay adaa hooyo iyo aabba ay kusoo dhihi doontahay farmaajo dalaaqadaada wuu ku siinahayaay daaqadaad ka bixi doontahay nin kaloo sharaf leh ayaan keensanaynaa oo magacaas ku joogi doona إن شاء الله بإذن الله الكريم وحال لا يهي وإنا كعدان إن رير يوكي شيك ما رير يوكي والو شيك هيا ويوغيين رير يوكي وإنا كعان وإن حسبك الله كعا وحال لا إنجليسكو ميل الله لي ميشاد كجوكتان إلا إسكودلين أو دير ميل كستا جوكتان وإن لو كعا شافيل وإن لغا كعا برنغام وإن لغا كعا ليستر وإن لغا كعا وروحا إن لا يهي مانشستر وإن لغا كعا لندن waa in laga kaca koona kasta oo ku yaala waa weyn yahay UK waa wadan weyn oo sida Soomaaliya oo kaleeta afarteeda koona waa in laga kaca wadajir waa inaan u kacnaa dir iyo daarood iyo isaaqo u kaca dadkiina siyaasadda muqdisho soo gali doona dad cusub baa imaanaya waa kaasa saasad u ogaanaysaan wadajir waa u kacaynaa marka waxaan leeyahay cidiina hawiye olaha dadka ما مثلان دad kan aytamahayo oo raxan weyn ma مثلان raxan weyn ana inii sheegaya habar gidiray warkayga meel ku qorta waxa WhatsApp Facebook-yada ka aytamahaya iyo YouTube-yada ha ku dayanina raxan weyn ma مثلان
ودد نولوشة كدعي يلا عاينين رحوين شيقي شريف وليهي علومي ليهين دد متعلمين وحبرتي ليهين هكودا ينينا أفكينا كهيستا بكي هداد كودا يتان واد قيميسين هبرجدين ودد لي يقانو إلا مريكنا يقانا مركا أدوينو ودنا لغي يقانا marka waxaan leeyahay ha ku dayanina ha u jawaabinina u aamusa ayaka daalayo iska aamusay laakiin dhibaatada baydhaba soo gaartay maxamed cabdullaahi farmaajo hooyo aabileeda waana laga jaraya asaguna kursi dhiig loo ku fadhiya abaal iyo asxaab u falayna male ma fahanteen soorto ka cunaa iyo cilowleyda ya abtiya lagu aadan yahay marka ha ku dayanina ninkaas nin jira maahan waad aragteen wuxuu ka sheegay gaalkacyo iyo regal mudug marka u aamusa وانكو سلامي ولا شيء معان وكا قاضي ولا شيء معان غير الله كسيو هالله كعو حسب قوي جر أن وقعنا إن عبد الشكور مالك كستون الدنيا ذا كتشوفنه مارك تحسب قبيل ملهم مفهم إنسان وان شاقد در إيه دارود يهوية إساقان اللي حسب قوي جر وإن لوكعة حسب وأيدي وفكرة ومامل ووحبرشة مركو حلا يهي إن الله وذكعه أو ليسكدوا أو حسب قاس ولا سمين كرا إن شاء الله أنا أقول ماشي عن قبول ولا بحواي مرة كقاركود بركي فريزن ير أيها كسعد قبل كأن دجنا هاي لكن أنا شيلين كيجا هل كان كل صوف الإنسان هي على كاوذ جر على مضاها قعنت وذ جر أنا كينا هي وحي ريم مانشسترنا أما ريل لندن ولا يبينا هي العكتاس إن حسبي على الصين هي مركا هاللوك عن إن لا يا ولا ليال حسبي وحيالها أن مارك تأدونكو أدون ملايسان إن حولو اللي سكربان حول أهين حسبي وحيالها أن مارك adunku iska dhaafa ninkii investment gashan kara ha gashada xisbiga wadajir sababtoo ah xisbigan waa mid adiga ku maamulahaya waa mid adiga wax ku tarahaya waa nin Soomaalinimo wax kugu tarahaya waa nin marraba inaan halkan ka sheego waxyaalo badan baa jira may fahantay dad baa meeshan oo badan oo siyaasi ah igula jira marka waxaan rabaa anigu inaan wadajir ahay waa cadaystay marka waxa weeyaan walaalayaal waan u kacaynaa waxaan Soomaaliya ka rabo inaan ku raaxaysan karo أنا درجنا مرة وإحنا مرة لكن واحد ربع فري ديمقراطية إنا كوجلو ورياء يسمين كروا إنا أنا نكستو معارض إيربور سومالي الوجوجين كذي ياكل عبد الرحمن عبد الشكور إنا سومالي أفرت إذا كون إسكاجا بحكرو ونعداوة كتير إنا أنا قبماس يسرق الجود جايين وأنت العقل وجوب بحية لديهم قف كسل السود دلو يا يقانا واحد نوع عصو كلته محمد عبد الله فرماجي حس على الخير ووحيالها يكربشن كوجليين برلمان كدحديث marka walaalayaal waxa la yahay xisbiga wadajirha loo kaco teleefankayga waad haysataan in wax allaale iyo waxa aad ka raadinaysaan xisbiga oo aad rabtaan wala badan yahay dadku waa badan yihiin qof kasta asaa teleefankiisa magaciisa soo baa in shaacdiga haya aniga magacaygu meeshu ku qoran yahay in kama qarsano waxa la yahay teleefankaygu waa ku qoran yahay in kama qarsano wax allaale iyo waxa aad ka rabtaan dadkiina muqdisho jooga sababta aad ka rabtaan cidiina hawiye cidiina daarood wax kasta qofka rabtaan ayaad la xiriiri kartaan oo teleefankiisa in soo shaacdiga aniga kaliya meesha ma joogo wala badan yahay wada jir dad badan buu leeyahay waa gacmo iskaashado isku yimid waxa la yiri dadka Soomaaliyeed oo qabiil lahayn oo magaca Soomaaliyeed markii isku yimaadaan isdhex galaan iskaashadaan sida wada jir xoog iyo quwad ayaad yeelanaysaan waxaad ka rabtaan inta aniga ay taqaana teleefankayga igala soo xiriiraysa waan qorahayaa waxaan u gudbinayaa Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ma fahmaysaan إلا وانك دن ودرشة قصة أو مدحوين ماذا عن قربنا إنه نور نقضه هذا الذي يوحنا مركا أدونك إيسا وعدان وأما إيسا قرتان باي إيميل كي يقولوا ومجعيجا إن كما قرصنا مركا وحنلاقي هاي إيسا درع إيسا وعى إيشيجا وحا أكربتان وحي تهي سياسة نوع عربتان أنو حسبي نك أسرية عبد الرحمن عبد الشكور أيان وجود بينها يا وحنا يساسا جرتا قبيل هبل ساسو كيري دد هبل ساسي كيراهن سومالي دو نوعاني ربتا سومالي دو ساني ربتا تاسان إن لا يهي وانا لبدن يهي أنيجا كليانا ما أهان وقادا إن وحسبي وين وحوليه ببلاشين أن الحسابي كرين شعب أن الحسابي كرين أيو لا يهي مفهم إنسان مركزاس إن تكو قاتان أو لوكعو داعادان ربناه daacad ayaan rabnaa Soomaaliya inaan ka shaqaysanaan rabnaa qurbaha inaan ka tagnaan rabnaa iska wuxuu qabsay inaan wax ku dhisanaan rabnaa warshadii Soomaaliyeed inaan soo celinaan rabnaa shaqaalaha Soomaaliyeed dhalinyarada jaamacadaha ka baxo xamar iyo dhooban inay shaqo ii helaanaan rabnaa ma fahanteen ku dar xisbigu waa ku soo biiray haye anigu igu dar xisbiga waa ku soo biiray gacada ku taagay wallahi billahi ma sha Allah tabaaraka Allah waa kugu dareeyaa way macaanto ballan ilaahay waay waa ku jirtaa waana kugu darahayaa إن ذاك مقعيدو أن ماشى كسر هيا نتهي قول الله كسيو مركا واحد وحيني شيء هيا ورشديه سوماليا
waxaa lagu dhisi karay lacagihii imaaraadka lagu gaday turkiya lagu gaday maraykan lagu gaday bildhinada hoteelada arkay nairobi lagu dhagan ayaa inta lagaga dhisay warshadihii lacagihii uu bixiyey maxamed cabdullaahi farmaajo xasan cali khayre hadda ayaan dhaweeto 80 milyan oo kun ayuu bixiyey banka Switzerland uu geeyay iyadoo jeeg ah oo qadar ka soo qaaday warshadaha Soomaaliya waa dhisi lahayd kuwii hore waa dhisi lahaayeen Soomaaliya shaqa ka dilaaci lahayd laakiin yaa ii diiday inay Soomaaliya wiilasheenu ka shaqaystaan iyo carruurteydii waxa diid anigu hooyooyinka Soomaaliyeed matalahaya ilmahaygu waa ilmahaadu waa ilmahaygi naag hooyaha wax dhashay aan ahay marka waxa waa yaa ii diiday wiilashan jaamacadaha ka soo baxay oo ma aragtay faamiladii kor saaran oo wadankii shaqo ka jirin yaa u diiday inuu shaqo u abuuro محمد عبد الله فرماجة حس على القير سبب بعد الله ده يجودين العجين لو قلت لك على ورشدي لو قفر لها أو طريقة لو قدس لها أو أرض لو قمال قل لها بنانا ذي يسارين مركب ولا عليال تاس بعد وقال إنسان وأنا مهد سنتين ونا وكع وذا جر هذا وكعدان دين النبي محمد وكوجو لسان إنسان عدو وذا جرنا هذا وحنوصل بحضي علماء ما فيها كأنك وقبيل كوير تين عبد الشكور بركه سحروقيا وحو soo sheegaa la yiri in Cabdi Shakuur inuu yahay madaxweynaha Soomaaliyeed oo soo socda maalintii koow la weerarayo loo soo sheegay dhaqaalihiisa iyo lacagtiisa in Cabdi Shakuur xagee ku maqan yihiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo boorsadii lacagta oo xisbigu lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qaat maxkamadan ku soo saarayna marka hal kaco anigu waa inii mahad celinayaa maalin kastana waa dhahayaa anigu qof dadkaas ayaan ka mid ahay xisbigoodii jiraan ka mid ahay ha loo kaco xisbiga ha la ololeeyo xisbiga dadka waa badan yihiin insha Allah bidnillaahi alkariim intaan ka bixino waxaan inii sheegayaa Soomaali Maxamedey dadka muslimiinta oo Hindiya lagu dilahayo oo dhigoodu daadanayo waa dadka minority-da oo ugu yar waaye islaamka Hindiya walaalayaal ha loo duceeyo muslimiinta la dilahayaa Hindiya ha loo duceeyo qoladii oo looda caabudaysay wadanka haysata waad ogtihiin dadka Ilaahay ka dhigay sac waaye ayaku dadkan wax kala ma laha dadka faraha badan iyo aaminsan yihiin looda caanaha loo dhigahayo marka walaali waa dadkan hilibka cunin marka walaalayaal waxaan leeyahay ha loo duceeyo dadka muslimiinta oo minore yar oo ku yariin islaamnadu idaacadii adduunka oo dhan ka hadlaaya internationalki waxa la dilahayaa ayaka dadka light-ka ahaa ma qandin light la yiraahdo waa jirtaa kuwii sheeganayay diinta katoolikada wala baabi'inooya ayakana marka waxaan leeyahay walaalayaalo ha loo duceeyo muslimiinta ha loo duceeyo lagu dilahayo in ma aragtay in Hindiya ha loo duceeyo walaalayaal taasaan in leeyahay ilaahay ha xaafido waa dad muslina waa dad ashahaata ha loo duceeyo ducada dadka islaamka ay isku duceeyaan ilaahay waa kiciya xisbigan ha loo duceeyo xisbigan Cabdi Shakuur u duceeya cadawgiisa ilaahay inuu qabto بلايدا سحرك كذا بوضع إلهي إنه كقبته وأهل الكتاب من كان بقول يأفر يطمنكوا وهيستا وشامع القرآن كأوجداشي ده سورة ماركته يا سجى كتاب بدي ده كان يكب وحاب ماركته كاسو هيستا إن عبد الشكور كاس قرآن كإلهي أيوه هيستا إن عبد الشكور وقعنت مذ كتابه هيا وحلا قاعدة هيا ملء سحرونه وحوك قاعدة هيا ملء هل كان وحكست أي كجيران ما يفهميسان كتاب جامع القرآن كأها مركا وي بدن يهين wax laga qaadahayo male walaalayaal ha loo kaco xisbiga ha loo duceeyo in Cabdi Shakuur cadawgiisana Allah jabiyo ninkii Soomaaliya daacad iyo cadaalad u la yimaado oo sima Allah ka dhigo taasina ku duceeyo nasimaha yaa waan ognahay salaam alaykum rahmatullahi wa barakaatuh